والنبي يري صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه قفكي آخرة هي قصد كيسا إيا النيديس هم كيسا إيا مروك تيسا إيا فكر كيسا إيا قصد كيسا قفك آخرة أويهي صدح الرماد أي قفك سهليا جعل الله غناه في قلبي إلهي بقلبي يسوحوا لقى هيا غني النمو إيا هضانت النمو ساقا وحبابها يسنن أي قلبي وحو كيه هي قف غني أي قلبي كيه markuu arka dadka didaalaya oo rafaadaya oo dhibaatoonaya oo daacada ilaahay kaga fogaanaya waba la yaaba qalbiga ayaa ilaahay qani ka siinaya wajama'a lahu shamla arrimihiisa iyo masaalixdiisana ilaahay baa u aruurinaya hal maalin buu wuxuu ku qabanayaa 10 arrimood oo midkiiba maalin gooniya ay u baahan tahay ayaa ilaahay arrimihiisa u khulaasaynaya u koobahaya وحلا وحو قبتبا إلهي با أفضلينها يا أسهل لها أرميه سنة والله أروريني وأرنك الله بعض وتأتيه الدنيا وهي راغمة الدنيا دون وحي أو إيمان إساء أيضا قصبا راغمة أيضا سند ليسن أو قصبا بي إيمان إساء أيضا ما سور راسن إساء أسباب يروا فضل بليمت الدنيا دي أو ضعيسن أو هقانسن با أو إيمان إساء صدح دا الرماد إلهي وحو أبلن قاضي وحويان قفك همجيسا هي النيديسو هي فكر كيسو هي آخره مثل كلافيري صدح عقوبة يا سارة ومن كانت الدنيا همه قفك أيتهي الدنيا ذو قصد كيسا يمركتي سي النيديسا أيتهي صدح الرماد بوعلو عقابية جعل الله فقره بين عينيه إلهي با فقريgiisa iyo gaajadiisa labada indhood hortooda keenahay faqrigiiba hortiisa taagana u dhawaaday markaasuu maantoo dhan wuxuu ka cararayaa faqr wax alla waxa uu haysto oo adduunyo ah inuu kordhiyo oo ziyaadiyo hamigeeda ayaa ku taagan maxaa yeelay faqri baa u muuqda wali meeshuu rabay oo uu isleeyahay gaajo ayaa uga badbaadi lahayd uma gaarin waa raadinaya cuqubadaasi way saaran tahay وفرق عليه شمله أرميه سنة إلهي وكلا جينيا هبين إيا مالي أرد بكتشرة ساعات كست أرد بكتشرة قاربا سنة كمركو دماغو حجك إني يسوقو تان هل بالأوكلي أشاني سفراقان وهلين هدات إلهي حجك من اللي يقول لي يعني لواتن سنة كوربا اللي يقول يشيبون لي أشاني سفراقان يواي وحا أشاني سكواي وبيتك إلهي إنو الطقاء صوع عمره سوع حجي أشاني سبول لي waxa uu ka carray oo raadinayo oo mashquuliyana waa adduunyo hamigaasna wuxuu keenay qalbiga ayaa faqri kaga jira indhaha ayaa faqri ka saaraya arrimihiisina waa kala tageen maalin kasta wuxuu baadi goobaya intaas oo arrimood oo mushkilada ayaa ku furan hal mid oo xalismaysana male mid markay soo dhawaato midii kale ayaa waxa weeyaan iyaduna waqti iyo juhdi kale dheeraada u baahan cuqubadaasi way haysataa ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له الدنيا أنا أوغا إيمان ميسو إلا وحي لو قدري موياني والله لو وحكا لك إلهي جهدي قصة أبعيو انت لو قدري أنبو صحا سلنيا ما طافسينكم من هلكم ولذلك النبي قالنا صلى الله عليه وسلم حنوشي يا حديث القدسي إلهي بينون ناذنيا وحو إلهي إن الله يا ابن آدم آدم إلمه سين آدمه تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى ابن آدم وحا أتفرق ذا ووحا ويا فراقه النقطة عبادتي قلبي وحا انكبه حين يا غني النماء ينكب اللقاط وأسد فقرك قاتل هذه فقري يا غنى وأن دبولي أنا كاد دبولي عبادتي إذا أتفرق أنا وحن كوبا لنقاضي يا قلبي قال إنه هذا أنت نمان دقه فقري أنا أنكا أو ذا قديس عن كاحر وإلا تفعل هذا ابن آدم وسيدا هذا الصمينين أملأ يديك شغلا قعنا هذا مشغول بان قورتك وقلينيا ولم أسد فقرك باهي هذا أنا مد بولها هبين يا مالي وباهم ثم كده عقوبة ذا صعيان هاي ستر وإن أنا أجانا هدينو دريني رزقيان نلاقري مرنا بيننا النسيجة هين إلهينا هدان عبادتي سو تفرغنا إلهي قلبي أنا غني نمت جاي
faqrigana ilaahay naga awdayo waa inaan wakhtigeenna qaaliga ah qayb xoog leh aan siinaa inaynu duruusta iyo cilmiga aynu juhdi gelinno oo baranno inaynu jamaacaadka iyo mataqaanaa meelaha khayrka inaynu habeen iyo maalin taagnaanno inaynu waxa aan haysanno khayrka ku bixinno waa inaan arrintaa iyadaa walaalayaal qanaacadaas ay qalbigeennu ay gashaa oo aan ogaana ummu xabiiba radia allaahu canha waa xaaskii nebiga sala allahu calayh wasalam ayadoo ducaysanaysaa nebigu maqla maxay ku ducaysanaysay waxay ku ducaysanaysay allaahuma amticnii bizawji rasuuli illaah wa biabii abi sufyaan wa biakhii mucaawiya ilaahuw iigu raaxee zawjkayga nolol dheeraan isla qaadanna aabbahay abu sufyaan walaalkay mucaawiya aad bay u jecla saddexdaba markaasay waxay rajaynaysaa ilaahay weydiisanaysaa nolol raaxa leh oo barwaaqa ah oo dheer inay ku wada noolaadaan nebigu markaasuu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laqad sa'alti illaah ilaahay waxaa weydiisatay umu xabiiboy liaajaali lmadruuba aajaal iyo madal iyo muddo la yeelay oo laga faaruqay waxba aan lagu kordhinahayn wa ayaamin macduuda maalmo la tiriyey oo aan la dhaafahayn wa arsaaqin maqsuuma arsaaq la qaybiyey oo laga tafaruqo oo laga faaruq noqday ayaa ilaahay su'aalanaysa laa yucajilu shayئan minha qabla xilli shay ka mida ilaahay soo dedejin mahayo intaas wakhtigiisa ka hor walaa yu'akhiru shayئan minha bacda xilli markii la gaarana shay ka mida ilaahay ma dibdhigahayo waa laga faaruqay walow sa'alti illaaha ayaa nebigu yidhi marka haddaad ilaahay su'aalan lahayd an yucaafiyaki min cadaabin fi الnaar wa cadaabin fi اlqabri lakaana khayran lak haddaad ilaahay su'aalan lahayd cadaabka aakhiro iyo cadaabka qabriga ilaahay inuu kaa badbaadiyo ayaa kuu khayr badnaan lahay oo kuu fiicnaan lahay halkaa ducadaada u leex meeshaani meel la joogaya ma ahan meel lagu daahaya ma ahan wax yar baa qofku joogaya waana ka tegahaya hantidaada waa ka tegaysa xooggaagu waa baaba'aya halkaa u leex asbaabaha risqiga ilaahay lagu raadiyo waxaa ugu horreeya atawakul cala allah ilaahay tala saaro xooggaaga iyo maalkaaga ha tala saaro ilaahay subxaanahu wa tacaala tala saaro waxaa ka mid ah alistiqaamatu calaa sharci illah sharciga ilaahay oo lagu toosnaado waxaa ka mid ah qaraabada oo la xidhiidhiyo waxaa ka mid ah istikfaarta oo la badiyo aan ku dadaalno istikfaarta inaan badinno sharciga ilaahay inaan ku dadaalno inaan ku toosnaanno tala saarana ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisanno risqi xalaal ah dariiq xalaala oo wanaagsanna aan ku raadino اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين دمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا عزيز برحمتك يا أرحم الراحمين صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين